Assalaamu calaykum saaxiibada ku xiran janalka Nasiir Graphics. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay mar kale. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeenan sida ciwaankiisaba ku soo aragtay, waxaan rabaa maanta inaan idinku baro sida loo sameeyo pixel stretch effective photo wax loo yaqaano inagoo ku sameyn doona Photoshop. Fadlan waxaa marka iga xasuusinaa haddii aad ku cusub tahay janalka oo ay tahay markayga ugu horeysay ee aadna soo booqatay, ha inaga ilaawin subscribe-ta, sidoo kalena muuqaalkan dhammayso. haddii aad ka heshidna like dheh, haddii aanad ka helina dislike dheh. mahadsanid. waa tahay khiyaarta, waxa aad soo kacsataa Photoshop-kaaga, kadib waxaa leedahay Control N ama file tag, kadib new soo dheh, oo intaas isma sheegayno oo aad taqaana adiguba. kadib waxaad tagtaa document type-ka, custom ka dooro, cabirkuna ha ku ahaado pixel, width-guna waxaa ka dhigtaa 1000, height-na waxaa ka dhigtaa 1000. resolution-ka waxaad ka dhigtaa 300 ama 150. inta kale waxba kama bedelaysid. waxaa iga xasuusina marka sawirkan aan anigu isticmaalay, haddii aad u baahan tahay videogan description-kiisa amaba commentiga ugu horeeya ayaa waxaan kuu soo dhigayaa WhatsApp group-keena si aad ugu soo biirtid WhatsApp-ka. kadib xaggaas ayaad ka helaysaa image-ka ama sawirka. mahadsanid. intaa markaad samaysatid kadib okay aad leedahay. cabirkii ayaa ku imaanaya. qaybtan layerska ayaad imaanaysaa, qufulka ayaad ka furaysaa, laba mar click ku sii, kadib okay dheh. markaa kadib haddana laba mar click ku sii, markaa qufulku kaaga furmo, kadib waxaad timaadaa gradient overlay ayaad imaanaysaa. dabcan halkan gradient waxaad aragtaa midabka waxaa ii dooran, midkan ayaa ii dooran, midkan ayaan soo doortay oo waa two color, laba color weeye. halkan waxaad ka dhigtaa halkaas solid ku ahaato, smoothness-kana ay ku ahaado 100. halkan marka haddaan waa inaad ka dhigtaa, xaggaasna waa inaad ka dhigtaa buluug calan, kadib waa inaad okay dhahdaa. halkan kusoo noqo marka blend mode-ka waa normal way, opacity-gu waa 100, gradient-ga waa color-ka hadda aan soo dalbaday, align with layer waa tignay ku saarnaataa, angle-kana waa meeshan tirada gelinaysa 52 ha ku ahaato, scale-kuna ha ku ahaado 150. intaas weeye. kadib okay aad leedahay. kadib waxaa kuu samaysmaya midabkan quruxda badan ee anigu aan samaystay. kadib layerkii aad ku noqonaysaa oo quful ayaad ku xiranaysaa. kadib anigu hadda wuxuu ii yaalaa folder ayaan sawirkii kasoo qaadanayaa, kadib Photoshop-ka ayaan la imaanayaa. sawirkii waa kana markaa sidaa u keensatid. kadib waxaad samaynaysaa, waxaad tagaysaa rectangle marquee tool-kan, halkan ayaad ku jiidaysaa sida markaa ugu jiidid. kadib Control J baa leedahay, kadibna Control T baa leedahay. kadib Shift Alt isla qabo Photoshop-ka hadduu Photoshop-dii hore yahay. sidaa u jiid. oo kadib waxaa leedahay, kadib move tool tag, kadib sidaas dheh oo korkaas geyso, enter dheh. sidoo kale haddana rectangle marquee tool ku laabo, oo haddana waxaa yeeshaa halkan kasoo qaado oo Control J dheh. waxaa iska hubisaa layerska sawirka ma ku dalban yahay. kadib Control J dheh, kadib Control T dheh, kadib waxaa qabataa Shift Alt, sidaas u sii jiid isagana oo sidaa yeel. dabcan labadaasi markay sidaa kugu samaysmaan, kadib waxaa leedahay layerska tagaysaa, labadaba waa soo dooranaysaa oo midka kore taabo, Control qabo, midka kale isagana taabo. labadaba markay ku highlight garaysiin Control E dheh oo margin ku samee. kadib waxaad timaadaa image, kadib waxaad cafwan intaad image tagin, labadii markay saa kugu dooran yihiin oo aad isdhexgelisay, Control A dheh. kadib waxaad tagtaa image, kadib waxaa leedahay crop, kadibna waxaa leedahay Control D. intaa markaad samaysid waxaad tagaysaa filter, go to the filter, go to the distort and go to the polar coordinates. kadib waxaa leedahay halkan jeega ha ku saarnaado rectangle to polar, kadib okay baa leedahay. markaa intaad samaysid, hadda sawirkii ayaa hooseeya, balse
si sawirka aad kor u soo marsiisid waxaad tagaysaa layerska kan baad hoos keenaysaa kadib sawirkii baa kuu soo kor maraya. Okay, layerka tag midkan weynay marka sidaa u weynay oo dhexda ku soo aadi sawirka ku soo haray sawirka isna xogaa soo yaree okay meelaha camal ku daa dabcan markaad sidaas samaysid waxaad yeelaysaa circle-kii uu imaaw oo layerka fiiri kadib qaybtan layer mask ku samee masking kadib waxaad tagtaa brush tool brushku waa inuu normal ku ahaadaa opacity 100 flow 100 qaybta kore waa inay ku ahaataa madow kadib meeshan waxaad dalbataa hard brush tool dalbo kadibna halkan sidaa u tirtir dabcan sidaa u tirtir waa kasaa waa intaas oo keliya. Intaa markaad samaysid kadib new layer dheh halkan new layer kadib brush tool tag kadib brushka waxaad ka dhigtaa softy qaybtan click ku sii haddana click ku sii kadib waxaa leedahay move tool tag kadib control T dheh kadib kani kala jiid sidaa u kala jiid qaybtan opacity-ga imaaw oo opacity-ga u yaree sidaa ugu yaree kadibna sidaas ku samee oo waxaad yeeshaa kadib hoostan sidaa u dhig si marka xogaa opacity-ga adee kugu xiran tahay xogaa sii yaree opacity-ga dabcan waa intaa oo qura. haddii aad adigu laftirkaaga baaritaan samaysid inta YouTube ka gashid baar pixel stretch photo in Photoshop qor adiga arkaya ayagoo cadaan ay sharxayaan ama rag ajaanib ay sharxayaan marka luqadaada hooyo ayaa lagugu sharxiyaa adigu ka bogo oo marka iyada ah ka dharag marka sidaasi ayaa noo balan inta aynu muuqaalkiisa xagadigu uu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaana Allah. Please hala baraatikeeyo Photoshop wuu fudud yahay channelkuna waa channelkiina ha lagu xirnaado. Assalaamu calaykum.